magacayga waa Nuurto waxaan deganahay magaalada London waxaan ahay fashion designer waxaan sameeyaa waxyaabaha dabiiciga ah iyo waxyaabaha ay dadka tuuraan sida caleesho kaleeto caleesha wax la tuuro ma ahan waa waxa dabiiciga ah ay ka imaado sida bado kaleeto aan ku soo dhawo sida aan u sameeyay waxaan ka sameeyay jacket waxay igu qaadatay 6 bilood inaan duleeliyo hadana tolo xabad kasto waxay u tolan tahay iskuma xirno xabadan hadda maanta diga foqdo kan kaliya haduu foqo waad ku dhijin kartaa oo ma ahan iskuma xiriirno kulligood sida u sameeysan tahay ayaan ku tusayaa waxa uu wataa maskadaas oo qofka uu gashan karo uu iska saari karo sidaas ayay u samaysan tahay geedkan waxaa laga sameeyay ilka geel ilkaha geela waxaan ka keenay wadankeeni hooyo waxaan ku faano marnaba aan iska diidin hal sano igu qaatay inaan nadiifiyo aan dhaqo waxaan u geeyay dhakhtarkii wuxuu u baahan yahay inaan heshid waraqada dhakhtarka oo cadeynaysa labadeena inaan wada taaban karno waxa la gaaray 10,000 oo pound 5 sano ka hor laakiin waan iska diiday sababta aan u diiday waxay ahayd because wadan kale magaciisa ayaa la rabay in lagu qoro anigana wadan kale magaciisa in lagu qoro waan diidanay shaqadayda runta waxaan ka shaqeeyaa waxaan ahay professional chef waxaan ahay dad qofka cunto kariyo waxaan sameeynaa cunto kariska ilaa 2009 waxaan professional ka ahay cunto karinta waxaan aad u kariyaa doorada iyo chickenka hadba qofba sida u yaqaano maadaama doorada aan chickenka aan xoog kariyo waxaan ku fikiray lafaha ay doorada inaan tuurin aan ka sameeyo sida geedkan oo kaleeto geedkan waa goono wuxuu wataa registeringkeeda wuxuu wataa katiinadeeda wuxuu wataa dhagaheeda haddii la isku daro katiinada iyo okay lafaha oo lugta inta ma ahan waa lugta faraha dhulka markii la dhigayo doorada ee lugta dhulka dhigays waa faraheeda sida u yartaa way ka duwan tahay kuwa kale hadaa fiirisid way ka weyn tahay laakiin kuwan aad bay u yar yihiin ma cuslo waa qafiif asaga iyo registeringkeeda iyo katiinkeeda waxa ku dhagan 20,000 oo xabo oo lafa maybe aakhiraadka baan saaxiibanahay this is my favorite one my stuff is my favorite one waa kii aan ka helay midkii ugu horeeyay markaan sameeyo aad buu culus yahay hadaan runta ku sheego wuu culus yahay laakiin sidaan u talay iyo fiiri waa sida aleeshiyo kaleeto isku mid waaye xabad baan ku dhajiyay kan waa glues wuuna culays yahay aan ku tuso aniga xataa ma qaadi waxa uu wataa asagana mask
waxyaabaha qaar kale ee la yaab kale aan sameeyo waxaa ka mid ah sida ookiyaalkan oo kaleeto, boorsadan oo kaleeto waa boorsadayda gacanta. sidaad u jeedid banaanka ayaan u qaataa. waxaan ka sameeyay kalaradan kala duwan. aniga waxaan aad u jecelahay falaawarada iyo ubaxyada iyo waxaas baan aad u jecelahay. maadaama aan ubax iyo waxaas jecelahay, waxaan go'aansaday inaan ka sameeyo wax banaanka aan la aadi karo, adigana aad samayn kartid, qof kasta uu samayn karo. waan ogahay Soomaalida inay ku cusub yihiin waxa aan sameeyo, surprise ay ku tahay, laakiin wadanka aan ku noolahay ee Ingiriiska waa wadan aad looga xiiseeyo, aad dadka ay u xiiseeyaan. waxaan jecelahay documentary aniga aan leeyahay soo socdo, Channel 4 ayuu ka imaan doonaa bishii 6 2023. documentarygaas oo ku saabsan waxyaabaha aniga aan sameeyo, oo ii sheeg sidii wixii igu dhaliyay iyo sidii igu dhalisay. asagoo Soomaali ahna wuu soo bixi doonaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo insha Allah.